بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أولا إله بفضل إسكره سبحانه وتعالى سورة قرية إن ما أنت كسوق قيب قره مدشة waxaa isku soo beegmay anoo ganacsata ah dhinacana siyaasi ka ah iyo muna hadalkeeda marka waxaan u maleynayaa waxba isku soo beegtay baan u maleynayaa dareenka muna waxa la wadaaga Soomaaliya oo dhan baa la wadaagta muna waxa ay ka hadashay waxa weeye fikirkeeda sidii loo maalgelin lahaa loo horumarin lahaa nasiib darrada weyn oo nahaysta waxa weeye wadan Soomaaliyeed oo Ilaahay nicmooyin badan siiyay in maantay dhalinyaradii u fakaraysay rag iyo dumarba ay xaaladda ku sugan yihiin mujtamacu wuxuu ka kooban yahay qofka qoyska iyo qaranka dalku hadduu sabool yahay oo Ilaahay uusan siin nicmo hadduusan siin waa suuragal in dadku ay magaratay dareemaan waxaan inay jirto dhalinyaradu inaysan shaqo heli kareen fursadka nolosha lagu horumarinayo inuu yar yahay waa haddii uu faqri jiro oo sidaa ay wadcigu yahay laakiin sidaa ma tahay way su'aashu Soomaaliya oo dhan annagoo aanan hadda wada galin xaaladdeeda waxaan rabaa inaan information yar la wadaago oo aan isu weydiino maxaa qaldan ilaah ma nahagraday mise annaga isahagranay Ilaahay wuxuu na siiyay badda ugu dheer Afrika 3,300 kilomitir xoolaha ugu tirada badan Afrika geera oo aan aad ugu faano populationka geera adduunku waxa lagu qiyaasay ilaa 7 milyan iyo bar 6 milyan iyo bar Soomaali ay Ilaahay u hiday khayraadka kale oo baaxadda uu leeyahay dhul beeraadka Ilaahayna siiyay haddii waxay la tahay kollay waa ognahay inta uu leeg yahay iyo marka loo eego shacbiga Soomaalidu tirada uu leeyahay Puntland oo kaliya haddii aan qiyaas yar ina siiyo si aan u fahamno qaladku ma anagu naga socdaa ma hoggaan buu ka socdaa ma shacabku ka socdaa mase Ilaah baa nahagraday waxaan rabaa inaan idin tuso 10 dal bal waxaad aragtaan 10 dal oo adduunyada ugu maanta muxuu ahaa xagga horumarka dhaqaalaha meel sare ka gaaray muddo kooban marka la eego dal waxa weeye dalka ugu horeeya waa Singapore South Korea Taiwan Israel Switzerland Imaaraadka Carabta Qatar Kuwait Bahrain iyo Belgium 10 dal oo aan soo xusay mid ka mid ah dhaqaalihiisu wuxuu ka badan yahay dhaqaalaha Afrika oo dhan oo la isku daray 10 dal oo aad wada taqaanaan
dhulka ay ku fadhiyaan waxa weeye 144,000 oo square kilometer weeye qorta meel ku qorta 144,000 oo square kilometer weeye masaaxadda ilaahay uu siiyey Soomaaliya waa 635,000 oo square kilometer weeye Puntland ilaahay wuxuu siiyey 212,000 oo square kilometer Puntland waxay ka weyn tahay masaaxad ahaan 10 dal oo aan soo xusnay oo ahayd Singapore, South Korea, Taiwan, Israel, Switzerland, Imaaraadka, Qatar, Kuwait, Bahrain, Belgium haddaan 6 kale oo dal ku sii dardarana wali Puntland baa ka sii weynaan lahayd dalalkan soo sheegay intooda badan biyo lacab ma leh ma haystaan xoolo ma haystaan kalluun ma haystaan dhul beeraad ma haystaan Singapore waad ogtihiin ama Taiwan dhaqaalaheeda ama teknolojiyada maanta aan ka hadlayno heerka ka gaareen waa 18 kilomitir oo dherer ah iyo 10 kilomitir oo ballaca dhaqaalaha ugu badanna waa sameeyeen nolosha heerka ugu sarreysa adduunkana waa joogaan maxaa keenay Puntland 212,000 oo square kilometer badda waxay leedahay Soomaaliya bar bay leedahay 1,600 kilomitir oo bada bay leedahay Puntland waxa la qiyaasayaa petroolka iyo gaaska iyo waxyaabaha kale oo ku jira inay tahay waxaan aqligu ay ku sukareen maxaa keenay marka muno kale inay nagu hor ooydo oo ay tiraaho in yar oo magaranaysa muxuu ahayd maalgashiga waa waayay anoo ka codsaday shirkadihii ugu waaweynaa ama bangi ha noqdaan ama telecommunication ha noqdaan ay fahmi kari waayaan gabar iyadoo kala ah oo fakartay muddo dhan ka shaqeynaysay inay hal abuur yeelato intii bilad la siin lahaa inay weydo maalgelin ay weydo anigu garow waxay ugu dambeysay iyadoo aan hotel barahayn laakiin waxaan imid garowe oo la maalgeliyay ilaa iyo dhowr iyo 40 hotel dhowr iyo 40 hotel madaxweynuhu hadduu joogana hoteelada waxbaa dhaqaaqaya duuboosaas aadana waa maranta haddii shir uu magaalada ka jiro ama doorasho ay ku jirtana waa la buuxaa haddaysan doorasho jirin 5 sano kadibna 5 sanadood bisha doorashada marka laga saaro waa maran yihiin maxaa noo diiday dadka xoolaha leh oo dhaqaalaha leh inay fakaraan oo ay maalgeliyaan dadka fakaraya iyagu haddaysan fakareen laakiin ilaahay xoolo siiyey ama marka qaarkood aan siraaho sheedaan baa siiyey laana waxa weeye lacaga badan xaraan waxa iska jira wax badan lagu dhistay marka ilaahay baa siiyey ma oran karo washaarikum fil amwal bi ilaahay leeyahay sheedaan ku leeyahay marka inuu shariik leeyahay sheedaan baa suuragal ah maxaa suuragalin weeye marka 40 hotel oo isku wada xigxiga oo malaayiin dollar in la galiyo oo khasaara waa maran tahay laana waxa waa income lacagtaas si fudud ku soo gashay easy go marka ku socoto way marka ganacsiga Puntland waa mid kooban weeye qofku wuxuu ku leeyahay guri baan rabaa inaan galiyo hadduu yahay diaspora hadduu yahay local waa waxa ugu sahlan oo meel wax galin kara weeye 200-300 kun oo dollar wuxuu gelinayaa guri diila yar waxa looga kireysanayaa 300-400 oo dollar bal xisaaba goormay lacagtaas soo noqonaysaa 40 sano ma soo noqon karo waa failure
dhalinyarada 35 ka yar unemployment ka shaqo la'aanta waxa lagu qiyaasaa 70 ilaa 80 baa lagu qiyaasaa shaqo la'aan jaamacaddu ka soo baxaya hooyo iyo aabe iyo magaranaysa juhdi baa la soo galiyay 20 sano juhdiya wax qorshe oo wiilka iyo gabadha loo hayaa maray la ganacsatadii wala dawlad wax loo qorsheeyay lama maanta kale waxaan filayay dawladdu inay magaranaysa wasiirro badan iyo madax badan inay ka soo qayb galayaan الوزير بان رجوله وما حسن يحيى تاسو عكسيسا waxa way ahmiyada inaan wali la fahmin ba ganacsatadu inay iska soo qayb galin madaxda dawladdan intooda badan inay samaanta joogin waayo waxaan la fahmin marka meesha loo socdo ma fahmin aliga raali ahaado 40 sano mucaarid ahaa waa dhawad waxaan ballan qaaday hadaan gudaha soo galo inaan mucaaridnimada joojinayo laakiin markaad waxyaabaha qaarkood aragto ya aftalax ku dhag weeye maxaan sameeynaa ya kama aamusu ka dhid waxa xun kama aamusu ka dhid laakiin waxaan sameeynaa waxa weeye waa nasiixinaya hadda waa bedelay system technology waa bedelay awal dabadan ka weerari jiray hadda nasiixan u bedelay ina adeero baryootan baan hadda galay ummadda loo naxariisto adiga isku naxariiso ilaahay baan kugu dhaarshay ma garatay muxuu ahaa hana baabiin ilaahay aan toobad keeno ina adeero baryaan ku jiraa marka baryadaan ku wadeena insha Allah taala wax badan baan noo hagaagi doona doorkii marka qoyska in la soo ababiyo dhalinyaro aan haysan school free aan haysan oo inta badan caruurtu ay dariiqa taagan yihiin anigu waxaan qabaa waxa weeye mujtamac iyaga mujtamac aad u fiican weeye mujtamac aad u wanaagsan weeye oo dun wanaagsan ka samaysan weeye laakiin mushkiladana haysa waxa weeye wax wariba waa hogaan inni jaa'ilun fil ardi khalifa bi ilaahi leeyahay ummadan waxaan abuurayo khaliif baan u abuurayaa aniga wakiiliga ah hogaan wax walba hogaan weeye ninka Singapore hogaaminayay waxa la yiraahdaa Lee Kuan Yew wuu fakaray markii loo dhiibay xilka loo dhiibay wuxuu arkay dad tiro badan oo mas'uul ka yahay dhul yar oo aan kheyraad lahayn biyo la cabo mare cunto la cuno mare waxba mare dadku waxa maraha biyaha wuxuu ka soo qaadanaya Malaysia uu ka soo go'ay oo arkay inay cadow tahay buu ka soo qaadanaya biyaha anytime bay saajin karaan biyaha وفكري markuu fakaray oo dadkiisa la tashaday wuxuu yiri wax kale ma haysano aan maskax ahayn ya ilaahay wuxuu nasiiyay hibu nasiiyay maskaxdeeda inuu ka shaqeeyno sideen u noolaan lahayn inuu ka fakaro way ka shaqeeyeen maskaxdooda bay muxuu haytay isu geeyeen waxa bay soo saareen adduunyada number 1 bay noqdeen annagu waa opposite wax walba ilaahay waa nasiiyay laakiin maskaxdii baan shaqeynay maskaxdii baan shaqeynay marka waxaan rabaa waxa weeye technology-ga ilaahay nasiiyay oo ah technology-ga adduunka ugu sareeya waxaan hadda ka hadlaynaa dhan technology-ga ilaahay baa abuuray soma lahu al-khalq wal amr isaga abuurtay tiiba caadil naga fadhida naga fadhida walwalkii iyo fikirkii baa maqan election-ka hadda ugu dambeeyay bikulli saraaxa dawladda aan iska yaqaan dhuftaadan doonayay waxa weeye 30 milyan oo dollar oo laaluusha baxay 30 milyan oo dollar oo laaluusha la bixiyay gabar laaluush bixisay kuma jirto waxa laaluushka bixinaya rag bay ahaayeen billahi calaykum 30 milyan oo dollar hadii si fiican wax loogu qaban lahaa munaamnugu hor oo yireed maanta ma wiil ama gabar shaqo la'aan ay ku dhici lahayd ma jirto ma dhacay 30 milyan inta murashaxiin badan u yeeray waxa ku horeeyay dhageysi ilaahay ka baqa ninka la dooran doono soo ilaahay ma qorin waa ilaahay baa qoray laakiin anagu hadda maanta ma ogeyn yes isaga uu noqon doona Soomaha
ilma adeerayaalow intaan qoratuur samaysano waxay ku dhici doontaa ninkii ilaahay awal u qoray lacagta aynu badbaadsano 30 milyan ya aynu badbaadsano fund intaanu gelino matching fund baan raadsan karaa adduunyada waxay diyaar noogu tahay $1 la imo $1 free aan ku siinayo 30 milyan marka 30 milyan free ku hesho meeqay ku siinaysaa 60 milyan soo 60 milyan haddaynu bangiyada adduunka ula tagno oo 10% baanu bixinaynaa meeqayna siinayaan ya xisaabta ku fiican $600 milyan oo dollar bayna siinayaan 60 milyan haddaynu geysano Islamic Development Bank oo xataa aan riba ahayn waxaana la siinayaa 10% hadday tahay 90% ilaa $600 milyan baana la siinayaa bilaahi calayk $600 milyan oo dollar haddaan haysano oo aynu develop garaysano muxuu ahaa from garacad ilaa iyo laas qoray muxuu ahaa kalluunkeena haddaanu samaysano oo 10 milyan oo neef anagu aan leenahay aynu develop garaysano oo aynu muxuu ahaa cooska iyaga iyo muxuu ahaa iyo baad iyo biyaba aan xoolaha iyaga u helo beeraha ugu fiican haddaynu samaysano dhulkii baan haysanaay yaa naga qanaysan وعندنا سوا 600 oo seed money ah oo milyan oo dollar waxay ku siin kartaa horumar trillions ah ninbaan maalmood waxaan weydiiyay gurigaaga waa ima oo qiimihiisu markaas wixii 100,200 waa masuul waxaan qiimaha badda aan ku leenahay ma taqaana hantideena badda ma taqaan intee tahay markaas uu yiri I don't know xoolo ma leedahay bana geel meelaha ku jooga haaba yiri 20 geel baan meelahaas 20 ka geel imisa way qiimaha uu sheegay magacyadoodii xataa magacyo u baxsan garacad markaad ka soo qabato ilaa iyo laas qoray waxa weeye waa 1600 kilomitir weey waxaad leedahay 200 oo nautical mile ah oo 300 kilomitir oo gudaha badda abaad leedahay marka 300 ku dhufato 160 marka ku dhufato waa imisa yaa xisaabi kara waxa weeye 480 kun oo square kilometer waa 480 kun oo square kilometer weeye waa google gareeyay waxaan raadiyay 480 kun oo dollar oo kalluun ka buuxo nooc waliba ah waa imisa qiimihiisa baan raadiyay maaha millions maaha billions maaha waa trillions waa trillions adduunyada maanta waxay socotaa waxa la yiraahdo blue economy waxa la yiraahdo jira blue economy 1 kilomitir oo bada dalkiire waa qani balay billahi alayk 635 kun oo square kilometer oo dhula iyo 3,300 oo kilomitir oo bada haddii dhalinyarada mono oo kalena ay ka gaajeysan tahay wiilka iyo gabadha muxuu ahaayay ee jaamacad ka soo baxay ay ku shaqo waayaan oo ay badda ku dhimanayaan iyo jasiirooyinka magaratay gafanayaasha u joogaan soo maskaxda iyadu caadil ma soo ma fadhido waa fadhido waxay ahayd nin waliba inuu millionaire yahay wiil gabar qof kasta oo Puntland ama Soomaaliya waxa uu ilaahay siiyay oo kaliya hadii loo agaasimo millionaire wuxuu noqonayaa kuwa carabta ma aragtay khaliijyada oo halka cigaalka suurta ma aragtay ninka qof kasta oo Puntland cigaal buu suran lahaa dhalinyarada maanta 20 sano aan burburkii intuu dhacay horumarka aynu sameeyay ma taqaanaa wuxuu yahay idin sheega danaan qadhuufta dawladda waxa weeye 3 mashruuc baa hirgalay oo dhalinyarada loo hirgaliyay waxa weeye waxa hirgalay isbitaalka waalida dhimadka leeyahay degmo walba oo ku arkaysan hay'adaha waxaan siiyo dhan wadaad tiraaho isbitaalka dhimadka lacag ma siinaysaa ku leeyahay oxygen waayo dhalinyaradii baa la waaray qaad stress walwal ya markuu waa shay ayaa waxa dhacday in loo sameeyay isbitaalka dhimarka
markay gaajoodaan oo ay walwalaan oo waxay cunaan waayaan waxa loo sameeyay isbitaalka tuberculosis loo sameeyay isbitaalka tuberculosis meel ma yaal ya isbitaalka tuberculosis meel walba waa yaal kaniiniga dhalinyaradu ay ka qaadan karto tuberculosis dawadiisu meel walba waa yaalaan waayo waa la gaajisay iyagoo ilaahay khayraadka siiyay baa la gaajisay ingiriisku wuxuu yiraahdaa qofka rabta inaad dulayso keep him hungry gaajisay in order to follow you inuu ku daba galo ilaa waa gaajaysan yahay ya qof gaajaysan xurmaha soo xurmaha inaanu gaajoono baa systematically naloo sameeyay oo gabadhayada mun xagee aad abixin ya sheekada kugu socotaa soo marka waxaan ku sheegay waxa weeye waana la gaajaysiiyay annagu ilaahay khayraadkana siiyay badayadii baa la jariifayaa oo 700 oo markab baa jariifaysa laysanaan bixinaynaa 30 markab baa maalin ruqsad la siiyay shirkadda Chinese-ka 1500 oo markab bay leedahay macnaheedu waa maxay 30 hadda gari buuxiso mid kale soo gari buuxiso dhamay yaa ka hadlay cid ka hadlaysa mare laana geel jira xukuma society-ga iyagu 80% waa geel jiray 15 waa beerley shanna waxa weeye waa xeebley hogaanka yahaya geel jira haya geel jira neefkiisa uu yaqaan inuu xanaaneeyo inuu baad u raadiyo inuu biyo u raadiyo inuu u dagaalamo inuu u dhinto uu awoodaa laakiin xoolaha kalluunka shaqa kuma leeso madaxa ummad kala iskale difaaceeda iyo dhimashadeeda iyo dagaalankeeda min ugu jira cid u dagaalamaysa ma aragteen laakiin imisa neef isku diraysa maalba neef geel isku diraysa waxaan nahay abdul ibil slave of the camel adoon baan u nahay waxa Soomaaliya dib u dhigay waa neefka geelawa barajaadka kale oo la siiyay muxuu ahayd dhalinyarada oo dhimarka isbitaalka dhimarka iyo tuberculosis-ka ziyada ku ah waa xabsi mashaariicda waaweyn loo sameeyay kamid naloogu mana sheegto degmo iyo gobol aan xabsi weyn jirin meesha yaa xabsiga loo sameeyay dhalinyarada loo sameeyay dhalinyaradii hantida ahaan lahayd oo sharaf ku noolaan lahayd oo milyaneerka noqon lahayd xabsi baa loo sameeyay laana markuu buuqo oo yarasaan ma anfacdo iga daay stress uu ka bato tuberculosis ay ku dhacdo qoriga uu qaato waxa leeyahay la qabto gudaha la dhigo laakiin wala fakari kari waay hogaanku waa fakari kari waay 80% waa dhalinyaro mujtamacu warsidee ku dhamaanayaan inay waali iyo tuberculosis iyo xabsi inaan galino aaway wasaaradda qorsheynta aaway madaxweynihii aaway xildhibaankii yaa loo taliyaa weey ummadan yaa u taliyaa weey mas'uuliyad ka saaran tahay waa markaad u tagto nin mas'uul ah ama gurigiisa ama xafiiskiisa kuraas dahab ah taa kuraas riji dahab la mariyay qurux badan aad u qurux badan markaad gudaha gasho banaanka u soo bax waa ma tagaysa situation ka saas way marka من المسؤول نقول كره إله يقام بما أنت محوها سمين كره محوها كراس ذهب كفر سكرة كراس هذا الذهب كأو إنه ريفلكشن أوت هاي تبدأ دتكاو مركي الذهب كفر إنسان كفر إنسان ذهب مركي يكون معنا يان دق بحيال إلا هذا دق حولها وكشق إنسان كروي ذي مركي يكون معنا يقول ورنا في عين هاي it's very good look here فرق قرح البطن يا وسير يبقى أوتجيسان الذهب مدحوين الذهب مش قالها أقاسم الذهب كراس قرح ما حد يقلب بحنايا دقيقة ما حد يقلب بحنايا وابا ذهب بيه هيسان من برنامج إسكسور نظيفيان مركورة واي
daas waxa maqlay traffic ma haysan yes traffic ma haysan ninba waa wuxuu ugu yiri bal iga waran ba adduunka ku yiri xagee la degi karaa meel fiican oo dega ma haysa wuxuu yiri aan formula yar baan ku sheegay waxa jaasin formula waxa weeye biir dal traffic leh oo dadkoodu traffic ay ixtiraamayaan hada aragto la deg biir meel traffic lowska oo ka soconayn okay hada tagsidna naftaadana ku aamin maalkaagana ku aamin لأن الدولة ما ملك رويد traffic law نفط هذه مالك هذا ما ملك كده ما بعده مش وجوه الرئيسة والإيبيو وحويه مجتمع عن traffic law رهين وشذ الربوع الشاي كرو ما نلويد بان بابور ما بان صومر بكاسة ودقات كروين توم شن باور بالنهار جيار ورم حيسه ما يشتان وحالي نمذا حقاد يبسنا يبالي يا قولت halka marka la socdo la leexo Soomaaliya meesha qaadka gabdhuhu ku iibiyaan ya nin madaxa ku iibsanaya qaad baaburkii aan ka dagay waxaan leeyahay adeer billahi عليك ka socod dariiqa noo dhaaf ya wixii markuu arka see ku dhacday dariiqo yar awal ba isagoo sidiisa u yaraa buugeeska intuu dariiqi dhex istaagay ilaa waa powerful nin lama hadli karo baaburkii uu istaagay boqol wiil oo askaraha gadaal usha qaad baa lagu gadanaya wuxuu xayiray baaburkii oo dhan buu xayiray haddii traffic joogi lahayd ama la xushmaynayo saa ma hateen arrintu inta inaan hadlo kuma talagalin gabadhaas iyo wiilasha iyo xaaladda jirta waan aad uga dhalagsanahay ayaa igu kalifaysa inaan runta marka qaarkood sheego oo aan wax maldahin marka waxaan oran lahaa waxa weeye horta ilaahay aan noqono ya ilaahay horta aan noqono annaga intaan halka fadhida aan iska bilowno intaan dhageysanaysa ama na daawanaysa anigu waxaan hadda jeeraa waxa weeye Soomaali waxa ka maqan toobad baa ka maqan albaabka raxmadda waa xiran yahay jaamacadda markaan soo galay jaamacad aad u weyn weeye oo facilities badan leh laakiin maxaa laga soo galaa hal albaab laga soo galaa hal albaabka hadduu xiran yahay ka waran facilities-ka aanu haysano oo dhan ma ka faa'iideysan karaa waa maya albaabka raxmadda ilaahay baa xiran Soomaali waxay rabtaa inay nabad hesho Soomaali waxay rabtaa horumar inay hesho inay cadaalad hesho inay magaratay barwaaqada ilaahay si inay ka faa'iideysato ilaahay inuu ciseeyo ilaahay inuu sharfo ilaahay inuu horumariyo wax walba ilaahay baa raxmadiisa ka sugaynaa bi qornay ma la socotaan garowe 5 sano inaan dhilic rooba ku soo dhicin 5 sano dhilic rooba kuma soo dhicin kuwa kuraasta dahab ka fadhiya they don't care because air condition baa u shidan lacag fariina waa haystaan laakiin miskiinka iyo miskiinada mar baan guri degan hadda hodheel baan deganahay guri baan degay magaalada dhinac kaga yaal jiiraan waxa ilaa muxuu ahaa guri dad sabool oo dan yar ah maanta oo islaam baa dhawaaqaysa habeenkii ugu horreeyay ka saxan karo war ma waxaan mooday nin waalan oo gabadha dirayaan mooday iskartii la joogtaan ku xibar soo fiiray meesha maxaa ka jirta waxa la naagta waalan tagaba subaxdii baan soo kacay bal inaan reerka arko darashada waxaan ka eeg caruur yar yar oo kulligood wada ciyaaraya maxaa dhacay waxa mid iskuul ka tagaa mid caruurta u jeedo dhan iskuul ma aadaan laana awood uma laha iskuul inay aadaan gurigii baan tagay odaygii ma shaqaynayo odaygii waa fadhiyaa wuxuu eegayaa gabadhii islaanta xaaska waalan buu ilaalinayaa caruurtii dhinac buu ka ilaalinayaa wax reerka u baxo oo wax siyaana ma jiraan billahi calaykum nimanka kuraasta dahabka ku fadhiya ma ogyihiin xaalad dadku ay ku jiraan u malaynay haddii ogaan lahaayeen waa ilmeyn lahaayeen malaayiin dollar la luushana ma bixiyeen ummadda daryeelkooda ka fikir lahaayeen sambalkaan arkay inay islaantuna waalan tahay maxay la waalan weyday laana duruuf baa ku timid aysan caadi noqon karin ilaahay aan soo noqon ilaahay aan toobad u keenno haddaan ilaahay u soo noqono ilaahay subxaanahu wa ta'aala
musalladna nooma soo dirayo hoggaan xunna nooma keenayo axwaashii ilaahay waa bedelaya laakiin waxay ku xiran tahay annagoo taqyiirka annagoo la nimaana taqyiirka annagoo la nimaana marka waxa way ilaahay aanu dib ugu noqono ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay dowladda hadday maqlayso maca madaxweynaha ku-xigeenkiisa wasaarada baarlamaanka ilaahay uga baqa ummadda aad madaxda u tihiin ilaahay uga baqa ummadda aad madaxda ugu tihiin yoom maalin baa lidi weydiin doonaa barwaaqadaas ummadda haysatay inay ka gaajaysan yihiin tuberkuloos ka qabaan dhalinyarada way badda ku dhamaanayaan wallaahi billaahi tallaah inaydan nabad arkeen aaway kuwii xoolaha qaatay aaway waalli bay ka qaadeen carruurtooda kullooda waalli waaye nin waliba oo ummadda xumeeyey gurigiisa ka fiiriya carruurtiisa ka fiiriya wallahi nin nabad ku jira inuu jiro kamaa tudiinu tudaan sida aad u dhaqantaa lagula dhaqmaya laanna ummaddan ilaah baa abuurtay ganacsatada waxaan leeyahay ganacsatooy wixiina qiimo waxay leedahay marka aad meesheeda sax aad gelisaan geliya dhalinyaradiina geliya ganacsiga ugu weyn waxa weeye kuwa human investmentka la geliyo dhaqaalaha la geliyo bani'aadamka la geliyo weeye dhalinyarada la gelinaya waa ehelkeena weeye waa rixinkeena weeye soomaali hadday isku abtirsato kulligood waa rixinku waa ilaa 40 oday weeye xag aabay xag hooy intii halka isku anta fariidna ma 40 baan kala tirsanaa maya wallahi baan 10 kala tirsan baac mushrow lacagta meel fog ha geeyna bal rixankaaga gali dhalinyaradu waa rixankaaga waa baabuur lan kurusro oo kuwa muxuu ahaa xabad karin baa la wataa waa imisa qiimaheedu 100,000 200,000 dollar waa imise soo saar ka dhaa 200,000 oo qofood bay bedel ka dhaa noloshooda waxaan idin sheegay waxa weeye aynu fakaro oo ilaahay u soo noqono oo ilaahay ka baran inuu ciisada iyo sharafka ilaahay noo soo celiyo sida aan hadda ku jirro si ma aha waa ka fiicnaan karaa وهدينا مسكحة عن تكنولوجيا وقصر هدانا كشق يصير نوعي تنا فردا مرك إن شاء الله تعالى أنا وحمر كلام ما هيو عسى موسى ما هيو وحدين شيء وحوي هدانا الباب كرحمة ضفره وإلهي أسوأ نقرنه إلهي أنت كلنا فرايا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلهي رحمة يسر نقام مرة لكن إلهي سوى أذو عاسية وكتاب كيسديدا وعدالة كفوق بعد ذا وحن رأى تكنولوجيا هذا السعودة كفش التكنولوجيا ما الله بحيه يا قبلها هذه يعني كفش التكنولوجيا سيد الله رد علمه تراكينج لو قسمه تراكينج هو وحكف صداه سيد الله سوق من لها مارت هفكران ولا وحنا لها كوا كفتنا قبلها قساسه قبلها لسي حقو قوستان ايغا حقو قوستان والله نندم غبر كفتدين ما قربت marka insha Allah ta'ala aan isku duubnaano ilaahay aan u soo noqono khayraadka ilaahayna si aanu ka faa'iideysano aad baan u soo dhaweynayaa hay'adda madashan samaysay oo hawsha ku jirta hadee technology-ga ugu weynta maskaxda naga fadhidee ilaahay hana solansiyo inaan iyada ka shaqaysiino wabillahi tawfiiq هذا منا أناكم القلنا إن شاء الله تعالى DMI